mislada foosheenti reenta qofku inuu la daaho maaragtay haddii heshiiskii uu bixi waayo waqtigii uu kala daaho reentada fuulaysahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخاي شرفت الله هذا بركة مرور بأجوكتان وحرم إن أن حق إذن لو ذاقو أسلام مهمة أتهاي صومالي بدن أو كودقان دالك نوروي ميبي وحالة إيكرا صومالي بدن أو كودقان دالك يوروب مريكا كمالا بدن إن شاء الله تعالى. أرنتان مهمة واحد تهاي aniga xogta aan haayo kulleyba hadda Norway qosaysaa inta aan ku ogahay waxayna arrintan ku saabsan tahay ama xogtan ay ku saabsan tahay gawaarida la gato badanaa hadda gawaarida cusub waxa dhalinyaro badan gataan oo kale laakiin waxa u badan yihiin dadkan tagaasida leh oo milkiilayaasha ah ayaa gata gawaarida qofkii shaqaalaha badanaa gaari asaga kuma laha oo gaariga waxa u soo gado ninkii lahaa soo gada asagana u wadaale laakiin marka aan ka hadlayno milkiilayaasha tagaasileeda ah Norway waxaa ka jiro qaab kala duwan oo gawaarida loo gato waxaa jirta kuwa ka kireenayo oo gaariyaasha gawaarida kireeyaan waxaa jiro kuwa ka gadaayo iyadoo ay saaran tahay renta ama ribo ay saaran tahay waxaa jiro ama waxaa jirta hal shirkad kaliya oo iyada wax renta ama wax riba ay saarneen oo ay zero tahay ribadeeda wax dhan laga ma qaaday haddii aan ku bilowno shirkadaha dhan badankooda haddaan dhahan kireenta way ka kireenayaan adoo gadato camal waay bedel wax xaq u leedahay lacag bilaa iska dhiibaysaa wax renta ay saaran tahay ma arkin ani waa dhici kartaa inaan qaldo laakiin wax ijaar oo renta ay saaran tahay ma arkin erey kale hadhowda gadaal aan ka sheegi doonaan jiro laakiin hadda saana dhehnaa taalaasaan ku diilinaa ijaarka kuma arkin wax riba ah waxaa kuu soo hartay shirkadahan kaloo waaweyn Mercedes ha noqoto Audi ha noqoto Volkswagen ha noqoto shirkadahan dhan oo kala duwan dadka ay gataan Nio gaarigan oo China ay leeyahay asal Nio kuwaasoo dhan badanaa ma wahbo waxay gawaaridooda ku gadaan ribo marka waxaan arkay ay Soomaali iskaga dhex darsanta xoogaa yar meeshaas waa u soo laabanaya laakiin kuwaas waxay gadaan ribo ku gadaan ribada marka laba kala ah mid waa midda kobciisa oo isbedesho kori hoos aadaa midna waxa waaye waa midda fastiga ah aan isbedelin gawaarida isbedesho Soomaalida badanaa way ka carartaa in ribada isbedelaysa ay qaataan way ka cararaan oo waxay u maleeyaan in ribo tahay waana seetahay ribo waay laakiin Soomaali kala waxay aamineen inay hadii fast renta laga dhigo aysan wax dhib lahayn nin odayaas aragnay wuxuu dhahay gaarigan oo Soomaasha Allah ma soo bixisanaas hay maxaa warinta ama ku soo saxawo ribo ama ku soo no fast renta waay waxaan dhahay qiimo go'an oo macnaha oo ribo ku saarneen ma u faahant qiimo go'an waana sad kala dhigo ii qoranta waa kana waa fiiri kartaa waa fiiri waxaan dhahay contractor waxa ku qoran intaas oo percent oo joogta isbedelaynin in laga qaadan doono haddii 0.00 hal ay tahay taa ribo wali marka waxa dhahay ribada waa ku gadataa ilaahay marka fast renta riba la waa iyadana haddii dhaqaaqaysana fleetna rentana Norwegiga ama midaan soo soconaysa haddii taan hoos kor u dhici karto iyada naftigeeda ribo waay labadaba ribo waay waxa ku soo harar shirkad oo iyadana xoogaa yar waa ku dari doonaa gadaal dama ugu dari doonaa oo xoogaa yar su'aal ay dhici karto inay ka soo laabato su'aashaas ka soo laabanaysa sheekha ni weydiiyay si arintan hadal u noqon oo u noqdo الشيخ وحو كجوابي الشيخ ونبا لكسا عالمي ما شاء الله تعالى الشيخ الاسكندنافيا دك كان لها مشو الاسكندنافيا دد لها شركه تويوتا دهايو gawaarida korontada qofka gadanaa ka hadla hatta gawaarida caadiga
Prius kii la iyo siibsat todobaqaadka ahaa isaga isku qaab ku gadi jireen Toyota ribada ma saarna hal koran xitaa lagu ma saarna hal percent xitaa kuma saarno iyaga waxay dhiibaan gawaaridooda waxay dhiibaan renta la'aan ay gadaan saas ay tahay waxa ku jiro oo su'aalo ka dhalan karo waxa kamid ah waxa ku jirto hadii aan lacagta xilligii for example bishan lacagta waxa dhiibaya 15 hadii aad kadib dhacday hal maalin lacag ku kori karto marka lacala waxa ku jirto waxa hadii lacagta aad dhiibaysid lacag ku korayso laakiin contractiga waxa lagu leeyahay for example 300 kun waay 3 sano ku dhiibaysa that's it waxa kugu kora ma laakiin waxa hadii aad ku dhiibayso waxa ku saarnayna marka Sheekh Yusuf Sheekh Allah iyo degan Sweden Sheekh Scandinavia Allah waa hor joogay ka wareysta arintan markii labaad ka wareysana waa laba mar ka wareysta Sheekh waxa ka waran gawaarida lagu gadanayo ay tahay ribadeeda ever ay tahay waxba laga qaadinin laakiin su'aasha lacala mustaqbalku dhahay hadii lacagta xilligeeda ay ku dhiibaysid billaha noqoto ama 3 sano markay dhamaata noqoto lacag ku korayso Sheekh jawaabtiisa waa nidaari doona insha Allah taala wuxuu dhahay arintan waa arin meel ka sagasha macnaha arintaas lacag dheeraad dhiibi doonta hadii xilligeeda ku dhiibayso lagu dhahay guriga degantay gashaa dhahay ijaarka kaga jirtay mobilka ku hadlaysid oo gala macnaha Europe waxa ka jirta sharci ama arno dunida inay ka tahay western ama galbeedka dhan inay taa laga yaabaa hadii oo lacagta xilligii loogu talagalay wixii rabtaa noqoto xilligeeda hadii dhaafta lacag ku kori karto way ku qoranta heshiis kasta xilligeeda hadii ay kula dhaafta lacag ku kori karto marka wuxuu dhahay arintaas waxa waaye arin balwa faafto waaye oo waxba laga bedeli karin balaayo faafto waaye oo ama shuruuc ka jirta dalka waaye waxba laga qaban karin marka wuxuu dhahay taas waxba ma dhibayso culum badanna waa muu ka sanaxtaa lacagtaas lagu dhahay wax dheeraad dhiibi doonta xitaa ma ahayn ribada iyaga iskaga kasaayo dhaha ma ahayn riba xitaa ma aha oo macno kale uu leeyahay culimo qaar kale marka wuxuu ku jawaabay in ay tahay arintaas wax dhammaan ay ku jabneen oo qofka gada kale maadaama meel kasta ay ka soo galayso xataa waxyaabaha ugu yar adiga oo dhici karta billaah u dhiibtid way kor arintaas waxa lagu dhahaa hadaa ku dhiibas waxa ku kale وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أخي بارك الله فيك مسألة فوشين تيرينتا قفكو إنه لداهو معرفتي هدي هشيسكي وبحواي وقتي وكلداهو رينتا فوليسا هاي قاري إبكيس كليئة ميدكو حيران معها وقانون guud ahaaneed oo Yurub oo dhan ka jira weeyaan hadii labada qofood ay heshiiyaan ama shirkad ama qof la heshiiyo waqti loogu talagalay uu bixi waayo forshanti renta waa soo galaysaa cid doonta noqoto gurigaaga ijaarkiisa ay soo galaysaa gaarigaaga iskaadkiisa ay soo galaysaa dhakhtarka aad u tagto faktuurada uu ku soo diro ay soo galaysaa meel aysan galin malaha marka masaladaas waa mas'ala la yiraahdo ida ammat albalwa marka waa mas'ala umum si guud ahaanada weeyaan culimada qaarkoodna waa magac kale u yaqaaniin oo al-qarama maliya u yaqaaniin ay tahay sabab reenta ah magaca on ba kul milan magaca reenta marka qaarkood iska baaxad weeyaan sida darteeda arintaasi diidi mayso in ay beecaasi البيع لجري كرو ما دام أصلا أثر كرهنتو أصلا كوشرين أي تهاي دي بدعة هدي أو يمادو جناح كذا رنايا العكس رنايا مركوا مسألة اللي يرادو إذا عمت البلوى أو يروح أنك تشتري مسألة بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحربا مركا فرينتي دي قصيصا وحواي هدي أجاريكو جدتي أرجع استعماله رنت كوريوس ودعي سوسو صعطة ribo waaye hadii fast renta ugu gadata kana soo soconay adiga isku mid leh qaadateen wax mis dhaantiin hadii aad qaadatid gawaaridan Toyota iyo noocaasa oo bilaaw ama heshiiskaba oo san ku qorneen wax ribo ah ay halaas laga rabaa 3 sano laga rabaa laakiin ay ku jirto lacala mustaqbalka waxa dhiibi doonta hadii lacagta dhiibaysay lacaga ku dul saaran doona mustaqbalka hadaa dhiibaysay waaye oo Sheekh Yusuf nooga jawaabay
marka hal ogaado Toyotada inta hadda aan soo arkay ilaa hadda aan heshiis ku galnay ama dad badan asxaabteeda ay gateen waa Toyotada kan hadda aan hubno in uusan lahayn wax riba ah aniga xataa fatwadan ka soo baxday Ireland oo Sheekh Qardawi uu ku jiro guryaha oo lagu fasaxay ma hubi inay ku jirto gawaarida in lagu qaadan karo qaab oo riba ah laakiin waxa ogaay inuu guriga ay la fasax guryaha waliba markii xaaji ku geyso dan ku geyso dantana ay noqon karto boos daruuri mar la dhigi karo saas culimo u banayeen culimadan majlisul fatawa Europa la dhahawaay iyaga dhiibeen marka gawaarida xitaa ma arkin inay fasaxeen lagu gadan karo qaab riba ah marka insha Allah taala hal ogaado arintaas ani xataa waxa isku dayay inaan u tago Mercedeska aan dhahay nimayo gawaaridana dhiga rabaa inaan gataa rabaa ma dhici kartaa xitaa haddii uu joogaan 600,000 oo lacagtan dalkan ah waxa ogolahay 650 xitaa iga siiya waxay noo soo darsada waxay ka galan mala ani waxay siisay contract oo qoran tahay halahan 3 sano ugu sii halahan 4 sano ugu sii that's it laakiin halahan oo halaan ay saaran tahay ma aqbali kari wax ribadan waa kugu soo celinayo dhahay ninka ugu sareeyaan tagay qaybta aan tagay ninka ugu sareeyay chef boss kana u tagay ama chef kana u tagay hal maalin uu maqnaa ma ugu soo laabto xoraniyow bangiga weyn oo Norway Danooshka bankin ama DNB wuu diideen inay qaabkan ku dhiibaan waa dadka caasimada joogina isku dayeen iyagana ay u socwaasay marka arintaas waa isku day niyo u tagay waxa dhinimayo rental aan macquul ma tahay loo qaato waxa dhamaya so aniga gawaarida markay koronto yihiin waxa fiican Mercedeska iyo Nio iyo gawaaridan Volkswagen kan oo 500 kilomitir marka kuwa badan fiican oo meel dheer ku geenaa jiro waqti badan wadi kartid marka kuwaasna waxay ka dhigaan ribo marka ma gadi kartid so Toyotada way fiican tahay laakiin waxay noqon maanta in jaajar gelisida waay jaajarkeeda badan laakiin iyadoo kuwa kale xoogaa koronto marka la kaliidato Toyotada kaliitaan laakiin isaga riba la'aan ah marka insha Allah taala waxaan walaalahay farayaa ha xumaada gaariga ama uu xumaanina ha yaraada kilomitirkiisa ama uu yaraanina waxa mar walba ku midka Ilaahay dagaalkiisa kaga badbaadayay Ilaahay wuxuu dhahay hadii ajuujuwaasan ribada iyo waxaan inta ka hartaa isticmaalasaan fa'adanu biharbin min Allah wa rasuulihi fa in lam taf'alu fa'adanu biharbin min Allah wa rasuulihi marka waxa la dambiga kaliya waa Ilaahay dagaal ana ku qaaday Ilaahay ana dagaal ku qaada faraha laga qaada ani isaga noo iska dhaxbax dadkan marka cabsiya leedahay hatta 0.0001 hadii loo saarto cabsi waay marka hal iska ilaaliyo dal adagna waa joognaa ana caadi u dhaxtaa ninkaas meejo war waxa dhahay ma dhici karto miya adinka dad waa ogtiin in dadka kala duwan yihiin xilli waxaan noolnahay wadanka Noor uu sheegay karin habdadaan ma dhici kartiin hadda dad badan baas buu Norway ka too ahan dadka dalku dhashay marka waxa fiicnaan lahayd in heshiiska la keeno oo riba la'aan marka wuxuu anaga bangi ma lihin bangi kala anaga nacaawiyo Toyota bangi igaas kale marka insha Allah taala warbixintan miib dad badan fahmina laga yaabaa laakiin dadka gawaarida ka tagaasilayda ee qosaysa ay dadka suluucda ka saayo marka insha Allah taala halas jiro fast trantiya lagu gaadin laakiin ogow anaga sheekh miim ku fatuuna waxba arinta ku saabsan maxalla heshiiskan oo 0% ah ama ever % ah ku galaysid heshiiska Toyota la galaysid xitaa hadii la dhaho lacagta mustaqbalka lagu saaran doono culimo ka jawaabeysa shibilo kale waxay leeyihiin hadii laga tago Yusuf soo jawaabay waxay leeyihiin heshiiska qaldan laakiin ribo ma ku dhicin heshiiska qaldan islaam ahaan ma la aqbalay heshiiska laakiin ribo ma galin Sheekh Yusuf wuxuu dhaasay heshiiska waxba kuma jabno arintana waa waxa laga qaban karo maadaama ay tabaloo faafta ay tahay oo meel kasta galayso isaga dhib ma laha marka insha Allah taala waa ka intaas idin wadaagay barakallahu fiikum walaalaha kalena gaarsi insha Allah taala way adag tahay hadii ay dhacday waxaan ka ilaawtan ugu dambeys hadii ay dhacday dad gatay oo san ogeyn lagu martay fast tranta ku gatay
انت كود من شوقهم لو سؤال قام نوع اسك جواب nin guri ku gatay hadii wax badan aad soo dhiibays inta ku dhiman iska boobsi iska wada dhiib iska dadaji ilaahay u toobadkeen saas allah ilaahay dambigeena ha dhaafo ilaahay ribanaha naga hayo ilaahay dagaal lama gali karna ilaahayna inaan dagaal naga ilaahna ma kaso akhyaar sharafta ilaahay barakee halis ilaaliyo dambigeena kala naga badan ribo ilaahayna nooguma daro marka insha Allah taala ogaaw aniga kuma dhegni qofka guriga kuma dhegni waxaas laakiin arintan war bixin ahaan u qaado أنا كف أن كل جرام ولا حدود ملاها واحد جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.